qisadii malaayiinta qof ka ooyeen ee Qays iyo Layla. Qisadaani Layla iyo Qays waa tii ugu yaabka badneed ee dunida soo marta oo ay ka oohisay dad badan oo mucaashiqiin ah. Buuraha, webiyada iyo badaha waa ka markhaati jaceylkooda xanuunka badan. Qisadaani waxay dhacday xilligii boqortooyadii Cabdilmalik bin Marwaan ee dowladdii Umayyiyiinta. Mucaashiqii Qays magaciisa oo dhammaystiran waxa uu ahaa Qays bin Mulawah bin Musaaxim bin Cadas. Wuxuu dhashay 440kii Hijriga. Wuxuu ku soo barbaaray maskax badnaan iyo fariidnimo. Qays aabihii waxa uu ka dhaxlay gabayada Carabta iyo sheekooyinkoodii. Qays aabihii wuxuu baray garashada xidigaha iyo guuraha habeenkii. Marka aan intaan kaga harno arrimaha Qays, Layla waa saaxiibadii Qays. Magaceeda oo dhammaystiran waa Layla bintu Mahdi binu Sacad binu Mahdi binu Rabiica. Waxay dhalatay 444 Hijriga oo halkaas waxaa ku cad in uu 4 sano ka weyn yahay Qays. Layla waxay la soo barbaartay qurux badnaan iyo laba indhood oo wax sixiraya. Dhirirkeeda iyo jirkeeda wuu isku dheelatirnaa. Waxay u dhalatay caddaan iyo qurux siyaado ah. Qays iyo Layla waxay ahaayeen 2 carruur ah oo ay isku keeneen qaraabadu, oo xagga nasabka waxay ahaayeen ilma adeer. Ariga ayay u raaci jireen ehelkooda. Sidaa kama aysan suulin ilaa ay weynaadeen oo Layla ka xijaabatay Qays sida ay diintan Islaamka farayso, taasoo kicisay jaceylkii iyo uhilowgii uu u qabay Qays Layla. Asiga oo yaraantii arki waayey quruxda uu hadda ku arkayo. Wuxuu arki jiray Layla oo aan ka xijaabanaynin. Markaas ayuu yidhi asiga oo calaacalaya sida tan: Layla, naawaad weynaatayow, waa adigaan xijaab isku waabaye. Waafiyaha jirkiyo waaxyaha qurxoon waad iga dadoo. Waayaha dhulkan wada joognay baan weli sii arkaa. Wakhtigii tegiyo waagaan yareen alloo yaa wareeg dib u weeciyo. Ina geeya waab iyo waadigii webiyada badnaa. Markii la ogaaday labadooda jaceylka u dhaxeeya waa la kala fogeeyey, oo Qays ayaa loo diiday in uu yimaado Layla agteeda. Haddana iyada oo Carabtu u aqoon jireen ceeb in ay wiil iyo gabadh sheeko dhex marto, Qays waxaa soo food saartay murugo oo waxaa saameeyey fogaanshaha Layla iyo jaceylka uu u qabo. Qays waxa uu bilaabay in uu ka fogaado ehelkiisa. Waxa uu la saaxiibay buuraha, goobihii ay markay yaraayeen ariga ku raaci jireen. Asiga oo xusaya maalmihii ay soo korayeen ee carruur ahaayeen ayuu sida tan yidhi: Layla, baraaraha bartaan ku dhalatiyo beledkii Samaaye berigaynu joognay. Aan wada barbaarnay kaa bogan lahaayee. Kaymaha banaaniyo aan beelaha joognaan. Waxba yaan baroortiyo boholyowga ii yimid nafta aan la biimayn. Qays wuxuu ku dhaartay inaanu daynayn Layla oo u tagi doono, taasi oo sababtay in Layla iyo ehelkeedii ka guuraan dhulkii ay deganaayeen si aanu arag Qays. Maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda way ka sii daraysay. Qaysna waxa uu ku wareeganayay buurtii ay ariga ku raaci jireen. Soo lama dhihin naf jacayl haya ma hargalo. Arjacaylka xanuun badana oo jahwareer badana. Buurta waxaa la oran jiray Towbaad iyo togii yaraantooda ku ciyaari jireen. Waxa uuna yidhi sida tan: Arlo kaa fog baan ku asqoobayo, maalmuhu anay ii oonayaan. Hogag baan ardaa ka agjeexadayo, oontii ka go'ay. Aradkiinu beri ku ayaayumaan ku agmeerayaa. Layla waxay maqashay dhibaatadii iyo wareerka haysta ina adeerkeeda. Markaasay adkaysan weyday. Kadib aabbaheed waxa uu ka xanaaqay heesaha iyo gabayada Qays u soo diraya Layla ee ku faafaya bulshada. Waxa uu ugu dhaartay oo ka xarimay in uu Layla arko. Tani waa Layla oo doonaysa inay Qays dhibaatada la qaybsato. Waxa ayna tiri: Saxaraad dhex joogtiyo iyo Soomaal haadkiyo, siigada dhacaysiyo, seeraha fogaadiyo, buuraha salkoodiyo, sabarkiyo banaanada
mar ma soo siyaartaa saxariirka caashaqa ha inoo sinaado aan soo salaamay qays iyo leyla waa laba ruux isjeclaada kuwii ugu jaceylka badnaa ee soo maray dunida labada qalbi hadday kulmi lahaayeen badaha webiyada iyo buuraha intuba way u hambalyeyn lahaayeen kalluunka badda ku jirana sacabka ayuuna u tumi lahaa laakiin sidaan ayaa dhacday la soco qaybta labaad qisadii leyla iyo qays oo xanuunka badnayd